Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada Dr. Mamu Lectures. Maanta waxaan ka hadlaynaa the basement membrane. Basement membrane-ku sidoo kale waxaa loo yaqaanaa dermoepidermal junction. Waa xuubka isku haayo labada lakab ee kala ah epidermis iyo dermis. Waa very thin layer. Thicknesskiisu waxaa lagu qiyaasaa 50 ilaa iyo 360 nanometers. Muuqaal ahaan markaad fiiriso wuxuu u muuqanayaa qaab waves ahaan. Yacni ma ahan xuub iska fidsan. Sababta keentay inuu sidaa noqdana waxay tahay qaabka ay isku haystaan epidermiska iyo dermiska ayaa ah qaab noocan oo kala ah oo waxaa loo yaqaanaa interdigitation. Haddii aan fiirino structure-radan, this structure wuxuu u taagan yahay epidermis, midkaan hoosena wuxuu u taagan yahay dermis. In between waxaa u dhexeeya the basement membrane. Markaad fiiriso marka qaabka ay isku haystaan waa qaab noocan oo kala ah. Yacni waa laba lakab oo saas isku dhexgalayo. Marka basement membrane-ku wuxuu ku qasban yahay inuu shape-kaas yeesho oo shape-kaas wave-ka u eg inuu yeesho ayuu ku qasban yahay. Sidoo kale epidermiska iyo dermiska inay qaabkan isku haystaan waxay ka saacidaysaa in aysan si sahlan ku kala fuqin, because hadday ahaan lahaayeen laba layer oo sidaan isku dul saaran waxaa sahlanaan lahayd inay si fudud ku kala dhaqaaqaan. Haddii aan usoo laabano basement membrane-ka, structurally waxaa loo qeybiyaa ilaa iyo 4 regions. Figure-kan wuxuu na tusinayaa structure-rada iyo zoneska basement membrane-ku uu ka kooban yahay. Area-dan waa plasma membrane of basal keratinocytes. Halkan waxaa yaala laba structure oo muhiim u ah attachmentiga ama ishaysashada epidermiska iyo basement membrane-ka, kuwaas oo kala ah keratin intermediate filaments oo structure-radan soo taagtaagan ah, filamentskan soo taagtaagan ah, iyo hemidesmosomes oo structure-radan ah. Okay, these structures waxaa loo yaqaanaa hemidesmosomes. Labadan structure gaar ahaan hemidesmosomeska waa structure-ka isku haya epidermiska iyo basement membrane-ka. These hemidesmosomes waxay ka samaysan yihiin ama waxyaabaha ay ka samaysan yihiin waxaa ka mid ah borotiino loo yaqaano plectin iyo integrin protein. Zonka labaad waxaa loo yaqaanaa waa area-dan lamina lucidum. Lucidum macnihiisu waxaa weeyaan transparent, yacni waa layer aad khafiif u ah. Layerkan wuxuu ka samaysan yahay proteins loo yaqaano laminin. Laminin proteins. These filaments waxay isku xirayaan hemidesmosomeska iyo layerka ka hooseeya ee loo yaqaano lamina densa. Zonka saddexaad waxaa loo yaqaanaa lamina densa. Marka loo eego lamina lucidum, this layerkan wuu ka thickness weyn yahay lucidum-ka. Major biochemical componentska uu ka samaysan yahayna waxaa ka mid ah collagen fibers, gaar ahaan collagen fiber type 4 ayuu ka samaysan yahay. Waxaa kaloo laga helaa laminin proteins iyo maado loo yaqaano heparin sulfate proteoglycans. Zonka afraad ugu hooseeya waxaa lagu magacaabaa sublamina densa ama
lamina fibroreticularis. yacni waa qeybta ka hooseysa lamina densa. Major componentska uu ka sameysan yahayna waxaa ka mid ah protein structures oo loo yaqaano anchorin. waa this protein structures anchorin fibrilis, collagen fibers, gaar ahaan type 7 collagen fiber, iyo structure loo yaqaano microfibrilis. halkaas ayaan kusoo koobaynaa lecturekeena maanta.